السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga anigu waayo walaashiina kaltumo cooking waani salaamay meel kastoo adduunka aad ka joogtaan kusoo dhawaada janaalkayga gacmo furan kusoo dhawaada inta waxaan ku haystaa bur waaye 2 koob waaye 400 gram waaye sokorteeda waatan 3 qaando u baahanahay subag waxa u baahanahay 1 qaando iyo haaf caanaheygana waa kana cusbada waatana waxaan ka isticmaalaa qaandada afkeeda hore inta waxaan ku haystaa vanilli waaye 1 qaando waaye intan waxaan ku haystaa leebato ama khamiiriso midka u taqaanid iyadana 1 qaando ka isticmaali doonaa alaabtaas ka leexina hadda waxaan soo qaatay baaquligeyga waa kana kaamirana ku toosiyaa rabaa sida u aragtiin hadda waxaan soo qaatay caanaheyga 8 ml waaye caano kuleel waaye waxaan kale u baahanahay inaan ku shubo leebatada hadda waa kana leebatada halkan qaando waa intaas ku shubana hadda waxaan rabaa inaan ku daro cusbada qaandadan afkeeda hore leen ku darsanaa waa kana sokorteeda 3 qaando isticmaala hadda adiga oo malab kor u isticmaalaysid 3 qaando ku isticmaalaysaa hadda malab isticmaalaynin waxa isticmaalaysaa 6 qaando ama 7 qaando soo dhadhan ku yeeshto macaan ku noqdo oo aan ka maqnaado ilaa adiga oo maxay ahayd 10 daqiiqo camal maqnaana markaas kadib soo laabanaa hadda waan isku qasaa waxa u baahanahay marka inaan daboolo waa kana haddaan soo laabtay 10 daqiiqo kadib hadda waa kana burkeyga ku shubnaa 2 koob bur waaye 400 gram waaye xabada ukuntana waa ku jibinaa haddana waxaan rabaa inaan ku daro vanillia ama carfiso midka u taqaanid laakiin heelka aad u fiican heelka ku darso hadda waxaan u baahanahay qaandadana ku qaso koodii hore gacantana ula galan rabo marka qaandada ku qaso kadib aan gacanteeda ku qasi doona insha Allah waxa waa sidiis banaan marka saan camal qaandada loogu qaso oo gacanta ula galaysid wuu jilcanaana jileeca ka dareemaysa laakiin waxa u baahan yahay ina farsamo kale loo isticmaalo subag oo kale isticmaalina subagan kor ka saari doona insha Allah ilaa si fiican ugu soo qamiiro baaquliga yani buuxitaan oo nus camal soo gaaro markaas kadib leewaay ina hooshisa gashid inta kalena waa iska dhigaysaa waa sugaysaa ila kaaga qamiiro hadda cajiinka waa qasan yahay waxaan u baahanahay daboolkiisa inaan ku xiro aan soo laabto 1 saac kadib waa kana haddaan soo laabtay 1 saac kadib waxa u baahanahay marka subagiga soo dhilaaliyay nus qaandana isticmaalaan rabaa marka nus qaandada waxa u isticmaalaa gacmaha aan gacmaha iskaga fajiyaan rabaa hadda waxaan soo qaatay alwaaxii burka aan ku samaysan lahay wax yar bura korka ugu daadsaday waxaan rabaa inaan gabal u googooyo waa kaasaa kuuska intana isticmaala qiyaastas intaas ay ugu filan marka intaas markaan isticmaalo xataa geesaha waxaa ka haray doono haddaartan burka hal mar fidin kartaa howl fudeed saad jeceshahay marka aan saana rabaa marka waa ka hadda waxaan ka bilaabaa xabadii koowaad waa kana wax yar aan fidinaa fidis badan uma baahno anigeedana isticmaalooyaa busudka loogu talagalay burka waxa harta ku samaysan kartaa haddaa kan haysanin koob wixii ay haysatada ku samaysanaysa ama galaas waa kana dhaxda geedkaas uu ka wataa ama furka cabitaanka dhaxda ugu goonaysa waa kaas dhexdhexaad waaye mana weyno mana qafiif ma ahan saxankay saliida ay marsan laakiin burkan ka iloobay waa kana xabadii labaad sideen ku wadaa
markaan soo dhammeeyo isku soo laabaneynaa. waa kana walaalahayga waan soo dhameeyey kulligeeda. waa kaasa saxankii koowaad. waa kan asoo waqtiga soo wareegana khamiirkiisa soo batay. hal raaciyo inaad dubtid 10 daqiiqo sida khamiirkaaga ku xiran tahay. khamiirkaaga hadduu qaando yar yahay oo aad u khamiireynin 15 daqiiqa sugaysaa. marka dhigis badan looma baahno. hadda waqti badan aad dhigtid burkuu ka halaawaa. hadda waa kana waxaa usoo wareegsaday qaybtii cuntada lagu karinayay. digsiga uu ii saaran yahay, saliideeda way ugu jirtaa. intaasaan rabaa qiyaasteeda. saxankayga waa kana iyo qaandadeeda. marka waxaa rabaa digsiina soo kulaado. burkayga kulli intaan kusoo diyaarsanaa. marka hadda waxaa rabaa saliid inaan baroobo ku sameeyo. bur yar aan ku ridaa gabal oo kii dhexda ahaayaan ku baroobeena. saliidda oo aad u kulul faa'iido ma lahan. maxaa yeele ciyow kaa gaduudana wixii dhexda ceeriin uu ka naqanaa. waa kana saliiddii way kulushahay. haddaan ku bilaabaa. markaan waxaa rabaa qaando inaan ku bixiyo burka. markaan kor u qaadaayo qaandada saliid yar iska soo maray. markaas kadib qaandada ma ku dhegayso. dhinaca hoos markuu balcas ka noqdaan gedinaa. adanoo caarti ka dhigo. hadda diyaar waaye. qaandadeeda aan ku baxsanaya soo qaadanaa. haddana 3 xabban ku ridaa. waa kana hadda diyaar waaye. waan ka wada bixinaa 3dooda. waa kana 2 tooko waan ii tusay. marka qaybta kale markaa soo dhameeyo qaybta miiska insha Allah wareejin doonaa. markaas meesha ku arki doontiin qaabkan kasoo wada dhigay kulligooda. walaalahayga waa kana hadda waxaan soo wareegsaday qaybtii miiska. kulli waan soo dhameeyey. noocan oo ii soo wada noqday dahabi waa kulligiis aad u qurux badan. aad u macaan badan yahay. ciyaalkana way ka heli doonaan. soo tijaabi. burkan bur oo nafaqo leh waaye oo ciyaalka lagu koriyo. burka dhexdiisa xataa cajiin ma lahan. kaal iska arag. walaalahayga waxaan iga codsanaa subscribe-na ii saartaan, like ii saartaan, in share gareysaan. walaalahayga video intaas uu ku egyahay. daawashada video ku mahadsantihiin. assalaamu calaykum.